السلام عليكم asxaabta maalin wanaagsan soo dhawaada. Today maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo haddii aad doonayso inaad Bitcoin iibsato meelaha aad ka iibsan kartid meel walba aad dunida ka joogto haddii aad ku nooshahay Europe ama UK ama America. Qaabka ugu fudud aad Bitcoin ku iibsan karto waxaa ka mid ah exchange. Waxa waaye meelaha haddii aad haysato dollar ama euro aad awood u leedahay inaad Bitcoin ama digital currency-ga kuwa kala haddii aad u baahan tahay inaad iibsato meelaha ugu habboon ee aad ka iibsan kartid. Meelaha ugu habboon waxaa ka mid ah ugu caansan haddii aad haysato Mastercard ama Visa card aadna ku nooshahay Europe ama UK ama America sidoo kale even xataa bangi transfer Coinsbase waa midka ugu caansan popular-ka ah oo la isticmaalo. Sidoo kale waxa waaye haddii aad iibsato $100 inta Bitcoin aad dhigto waxaa ku sii doona $10 dheeraad ah adiga aniga labadeena waa heli doonaa. Marka haddii aad doonayso marka inaad ogaato macluumaad aad iga siiyo Coinsbase waxaa leenahay waa company xaruntiisa ku taala UK buy and sell digital currency-ga ah haddaad u baahan tahay ka iibsan kartaa waana iska iibin kartaa haddii aad Bitcoin-kii aad doonayso inaad dollar ama euro ka dhigato. Sidoo kale caalamka oo dhan waxa waaye popular oo ugu caansan yahay kaasoo buy and sell ah waxaa ka mid ah marka hadda u baahan tahay Bitcoin aad heli kartaa Ethereum ama Litecoin. Company-ga intaas ayuu iibiyaa exchange-giisa uu taagan yahay. Information intaan in ka badan akhriso u baahan tahay haddaad ka ogaato. Sidoo kale waxa waaye do your own research adiguna samee si wax badan aad ogaato Coinsbase. Haddii aad doonayso marka inaad xubin aad ka noqoto aad Coinsbase ka iibsato Bitcoin aadna ku nooshahay UK ama Europe ama America waxaa awood u leedahay access ah inaad toos ugu iibsato bangi haddaad haysato aad ku leedahay aad toos ugu xiran karto Mastercard iyo Visa card-na aad ugu dalban karto Bitcoin. Waxaad dhihi doontaa marka sign up linkiga hoos ku qoran ku dhufo after waxaa arki doontaa sidaan sign up markaad dhahdo kadib waxaa arki doontaa foomkan laga rabo inaad buuxiso si xubin u noqoto aad u awood u lahaato inaad Bitcoin iibsato. First name-kaaga last name-kaaga email-kaaga iyo password-ka aad u access garanayso waxaa kaloo ku dhufataa calaamadaas jooga saar ama reports waxaa kusoo bixi doona in aad doorato wax laga doonayo. Tusaale kale waxaa lagu doonaa building oo kale inta sawir oo building kula muuqato kale jooga saar jadwalkaas kadib waxaad doontaa calaamada kale jooga saar create your account markaad dhahdo automatic email-ka waxaa lagu soo dirayaa bashqad lagu diri doono ku dhufo baa ku dhufato linkigaas automatic wuxuu kuu noqon doonaa account-kaaga mid active markuu noqdo kadib waxaa kusoo bixi doona sidatan waxa waaye dashboard-kaaga waxa waa meesha ka arkayso Bitcoin hadduu sare u kaco iyo hadduu hoos u dhacdo Ethereum-ka sidoo kale iyo Litecoin-ka waxaad kala socon doontaa. Sidoo kale waxa waaye haddaad haysato euro ama dollar waxaad iibsan kartaa Coinsbase Bitcoin Ethereum Litecoin aad iibsan kartaa saddexdaas ayuu company-gu iibiyaa Coinsbase. Marka Coinsbase waxyaabaha ku jeclaa waxaa ka mid ah haddaad iibsato $100 waxaa heli doontaa $10 oo dheeraad ah haddii aad u invite garayso dadka kale labadeena waa heli doonaa haddaad iibsato $100 $10 adigoo dheeraad ah helaysa aniga $10 aan helayo boos labadeedaba. Qaabka ugu fudud Bitcoin aad iibsan karto dashboard-ka markaad aragto kadib aad doonayso marka inaad toos u iibsato Bitcoin waxaad ku dhufan doontaa buy and sell markaad ku dhufato automatic sidaana kusoo bixi doona. waxaad geli doontaa Mastercard-kaaga Visa card-kaaga all information-ka adiga markaas intaad ku nooshahay Europe ama ku nooshahay UK ama America kadib waxaa ku xiran doontaa haddaad bangi leedahay bangigaaga haddaad Mastercard haysato Mastercard-kaaga iyo Visa card-kaaga xafiidaada waxa waaye markaad buy aad dhahdaa iibsato after 1 hour or 24 hours gudahooda 1 hour waxaa heli doontaa Bitcoin-ka inaad haysto in kale waxaa ku ogaan doontaa wallet-kaaga waxa waaye haddaad haysato kuwa hadda idin sheegaynaa Bitcoin Ethereum oo kale iyo Litecoin sidoo kale waxa waaye
bitcoin-kaaga meeshan 0 wuxuu noqon doonaa inta doolar markaas aad haysato $100 kale $100 kusoo bixisay asaa bitcoin inta u dhigmatana inta ku arki doontaa marka wallet markaas ku leedahay waaye haddii aad doonayso marka in lacag lagugu soo diro adoo Coinbase haysata wallet-ka oo bitcoin-ka waxaa ku dhuban doontaa receive markaad ku dhufato kadib waxaad dhihi doontaa show me address-kana koobiyeynaysaa qofka doonaya inuu bitcoin kuu soo diro address-kana koobiyeynaysaa markaad koobiyeyso kadib asigaa u diraysaa asigaa u dirto address-kana adiga aad leedahay markaa u dirto asiga wuxuu kusoo diri doonaa bitcoin-kana waxaa ku arki doontaa account-kaaga oo balance-giisa isbedelaya markaas aad dirto kusoo diri doonaa Ethereum-ka waa la mid yahay Dashka-ka waa la mid yahay okay intaan ayaan kusoo gabagabeynaa haddii aad doonayso inaad bitcoin aad iibsato adigoo isticmaalayo Coinbase marka subscribe my YouTube channel-kayga haddii aad su'aal haysato leave me comment thumbs up meel aad joogtaan waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan horumar wacan online making money online lacag ka sameyn meel aad joogtiin waxaan idin leeyahay bye bye